kusoo dhawaada barnaamijkeena la magac baxay all of us waxaan rabaa big bro inaan ku weydiiyo normally caadiyan sida jirkeena waa ilaalinaa wajiga hadduu kaa wasaqoobo waa dhaqdaa haddii yani aad dareento in hilibku uu ku koray waxaa samaysaa exercise ama cuntadaa yaraysaa ama waxbaa samaysaa maxaad samaysaa inaad ku ilaaliso maskaxdaada maadaama maskaxda ay tahay organka ugu muhiimsan jirkeena ee aan ku dhaqdhaqaaqno ee nolosha wax uga qabano maxaad ku ilaalisaa oo mataqaanaa aad ku dhowrtaa maskaxda waxaan ku ilaaliyaa refresh inaan ku sameeyo waxyaabo entertainment firsada soo si maskaxda markaas jam markay noqoto maskaxdeeda si aan markaan maartay physiotherapy sameeyo oo kale mise markaan exercise sameeyo mise markaan maartay waxyaabo entertainment aan firsado maskaxdeeda saas refresh ku noqotaa maxaad samaysaa oo ku ilaalisaa maskaxdaada arto ma santahay aan maskaxdeeda waxaan sameeyaa ku ilaaliyaa habeenkii waxaan seexdaa on time subaxina xilli fiican soo kaca si aan u soo shaqeysto waxyaabaha oo qiyaaligan iska ilaaliyaa sida waxaan ka fogaadaa drugska kale beento kale tuugnimada kale maskaxdeedana subax kasta waxaan ku kordhiyaa cilmi every single day waxaan isku dayaa inaan wax barto diini ahaato cilmiga dhanka kale ha ahaato saasaan sameeyaa saasaan maskaxdeeda ku ilaaliyaa maskaxdeeda waxaa ku ilaalin karaa inaan maskaxdeeda dejiyo habeenkii oo kale markaas seexato maskaxda way dagaysaa Soomaa maskaxda inaad dejiyo problemki stresska badan wax dhan aan ka ilaaliyo intaas yani aan ku ilaalin karaa magacayga waxa la yiraahdaa Cabdiqaadir Macu kuna magac dheer Daadir Macu hadee arimahaas ay kula soo gudbaan maskaxda lagu jijin karaa waxa waa inaad isdejisid oo stresska iska ilaalisid intaas maskaxda ku fiican tahay horta kuma santeen barnaamijka adwadeen 100% waxaan ka mid ahay taageerayaashiina ku xiran markaan ka hadlo sida loo ilaalin karo maskaxda mise loo nadiifin karo qofka horta maskaxda markuu waxay la tahay waa asaaska koowaad ee qofka nafsadiisa qofka maskaxda ay wasaqdo mise ay wax ku dhacaan dhaqaaq ma yeelanayo marka waxay tahay qofka inuu iska ilaaliyo waxyaalaha badan yani sida stresska kale yani sida yani inuu qofku ismashquuliyo kale waxyaalo badan inuu iska ilaaliyo sida mashquulada badan inta badan waxa dadka dhalinyarteena dhaawaca ku keeno jacayl inta badan 100% laba qof oo jacayl waqti badan socdeen inuu qof yani uu balanta uga bado kale stress qofka dhimraal noqonaya oo niyajaba markaas maskaxdiisa marka dhaawaca ku imaanay marka inay yani waxyaalaha badan ay ka digtoobaadaan waxaan leeyahay rag iyo dumarka labadaba khiyaanada hala joojiyo inta seen ku soo koobaan ma sha Allah tabaaraka Allah aad u mahadsan tahay aadan kaaga macalin sida wanaagsan ee naga qayb qaadatay waxaan rabaa maskaxdaada adiga ku qaaska ah ee organka ugu weyn ee jirkaaga ah sidaad u ilaalisaa fikirka badan aan ka joojiyaa stresska waa cibaadadan badsanaa marwalibo ilaahan barnaa marka aad u mahadsan tahay waa kaaga macalin sida wanaagsan ee naga qayb qaadatay ilaahay baar waa koodhe maskaxda horta nasiina u diraa so sometimes marka xoogo igu wararsamay jiq isku noqoto oo quraan waxaas ka akhristaa si macaan badan oo iska leen qabow iskaga dejiyaa marka saasa marka maskaxdeeda maxaad ku waaninaysaa qof maskaxdiisii kacsan tahay oo walaal ah maxaad fariimaha u diraysa muxuu yahay oo ku waanin والله مدة أكون لها مسافرينتا ما حد هذا مدة أكون لها واحد وردي تسبيح لي مارتين إنه اسكب ذي عبادة مركو إله اسكب حرنا هذا إلهنا باروا كوده مركز صدي الله maskaxdeeda hadii ay buuq ay wax ku furanta meeshaan joogo waan ka tagayaa meel kale ku nasanaaya aan tagi karaa waasaas ma sha Allah tabaaraka Allah aadan kaaga mahadcelinaa sida wacan naga qayb qaadatay soo dhawo aa ilaalsada maskaxda hurdada intaas ka badan gaxdayda maxaan u dhowrtaa wuxuu ilaahay xaraamtiyeen ka reeba wuxuu ilaahay amrana waan ku dhaqmo ما شاء الله تبارك الله عربينا كسو دواatay barnaamijkeena Faas oo ah aqoon kororsi barnaamijku waa naga qayb qaadanaysay su'aalaheena waxaan rabaa inaan ku weydiiyo organka ugu muhiimsan jirkeena oo maskaxda ah qof walba si gooni u ilaashtaa adiga maskaxdaada waa organ muhiim ku ah sidee u ilaashataa oo uga dhowrataa dhibaatada السلام عليكم وعليكم السلام magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Cabdi oo ku macdheer Cabuudi su'aasha saddex aan ku jawaaba isku day waxaan ka kartaa maskaxda
maskaxdaada waxaa ku ilaalin kartaa wixii buuq naqan karo wixii stress inaad iska ilaalisid buuqyada iska yareysid wixii stress oo kugu imaan karo oo kale waa inaad ka taxadirtaa saa maskaxdaada u ilaalisid intaasaa stresskaagii maskaxdaada buuqeed ku ilaalin kartaa aadan kaaga mahadcelinaya jawaabta wanaagsan ee aadna siisay ku soo dhawow assalaamu calaykum okay horta maskaxda bini'aadanka ilaahay waa abuuray laakiin farqo badan uu kala bixiyey mid waad arkaysaa diinta islaamka ma haysto waa iska gaal caadi ah midna waa islaam qofka islaamka ah intuu ilaahay uu ku xiran yahay maskaxdiisa nadiif waay saa aaminsanahay waxaa kaloo soo haray jirkaasi loo ilaaliyo jirka nadaafadda lagu sheegay waa qayb ka mid ah diinta islaamka ilaahay intuu sheegay nadaafadda hadday hagaagsan tahay qof diin la ayaa tahay jirkaygana diinta aan leeyahay ayaan ku ilaaliyaa oo qof islaam ayaan ahay teeda kaleeto maskaxda waxaa u keeni karo inay dhaawac noqoto wax kaa taga oo ka shalayso wax kaa horeeyo oo isgaarin oo ku fikirto sida aad ku gaari lahayd waxaa ka muhiimsan inuu ilaahay gaad ku xirnaato بريتو إنا جاريس متقاني لكن ده واحد أهين سادم أما بريك لصدح ماني كدب شقة سنقبلونا إن شاء الله ويسكيل لو أنت تاسوا وحسوسينها لكن مسكح القفك بالعادن كا دين تاسوس كحرنادو كتاب إلهي وسكا هادو استرس كل شيء وواحد سكا عمل ذا هذا قال ذا واحد نسك جيران لكن استرس وحلي رام الجيران سبب تقف إلهي دكونا استرس مع ركاي مرو غير هادي كلسو درستو كتاب إلهي كله قف هادو قاعد انتو إنا لله وإنا إليه راجعون عادي بريد كل نفس دقيقة قف كستو لمنها أني أنت سبحان أنا سنة أنت أيضا نقول شيء God, we know you're for us. God, we know you're with us. God, we know you're fighting for us now. And though our world is shaking, Lord, you remain strong every season of our lives. When life doesn't